الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، walaalayaal cilmiyo badan baa la bartaa oo dadaal lagu bixiyaa. cilmiyada koonka yaalla ee la barto, cilmiga ugu qiimaha badan ee ugu sharafta badan waa cilmiga uu xidhiidh Alle subxaanahu wa tacaala ula leeyahay. hadday axkaamtiisa tahay fiqiga ah, hadday caqiidada tahay, hadday tahay dhaqanka wanaagsan ee Alle subxaanahu wa tacaala inoo jideeyey, waxaabana waxa ka sii sharaf badan oo ka qiimo badan cilmiga Alle subxaanahu wa tacaala lagaga hadlay, magacyadiisa qiimaha badan iyo tilmaamihiisa wanaagga badan iyo ficiladiisa cajabta badan. cilmiga ka hadlayaana ugu sii qiimo badan marka cilmi la yidhaahdo. waxaynu maanta dul istaagaynay magacyada Alle subxaanahu wa tacaala ka mid ah, oo haddii aynu rumayno, macnihiisa dhuuxno, midhihiisa milicsanno, nolosheenna ka dhaqangelinno, wax badan oo inaga khaldan oo nolosheenna ku saabsanay ay hagaagayso. waa magaca Alle subxaanahu wa tacaala ee loo yaqaano alraasiq ama alrasaaq, oo ilaahay iyo rasuulkiisu ilaahayna uu isku magacaabay, nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam alla uu ku magacaabay inuu alla yahay subxaanahu wa tacaala allaha wax arsaaqa ee deeqaha bixiya ee dadka noloshooda waxa weeye kafaalo qaatay. bal wax kastoo kownkan ku nool, malaayiinta nooc ee kala duwan ee adduunka ku nool, Alle subxaanahu wa tacaala risiqooda iyo noloshooda uu kafaalo qaatay. aayado badan buu ilaahay macnaha ku tilmaamay oo hadda ay dhagaheennu maqlayeen. wuxuu leeyahay Alle subxaanahu wa tacaala, dhulka dushiisa wax kastoo socda risiqiisa ilaahay buu saaran yahay oo ilaahay buu ku leeyahay oo Allah subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday. mar hadday sidaa tahay, qofka muslimka ahi waa inuu aaminaa wixii ilaahay uu ugu talagalay ee arsaaqa inay u imanayso. bal nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, haddii ay dhacdo qof bini aadani inuu risiqiisa ka baxsado oo ka ordo sida uu uga baxsanayo wadka iyo geerida, wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, risiqiisu waa ka daba imanayaa oo waa soo haleelayaa oo waa helayaa sida geeriduba meel kastoo uu tago ay uga daba imanayso. waa macno kaba dambaysa inaan risqi ku dhaafayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qoray. wuxuu kaloo Alle subxaanahu wa tacaala aayado badan ku tilmaamay, yabsutu risqa liman yashaau wa yaqdir. mar hadduu ilaahay arsaaqda bixiyo oo 50,000 oo sano ka hor samaawaadka iyo dhulalka intaanu abuurin ayaa qof walba risiqiisa meel lagu qoray. marka uu uurka hooyadii galayna si gaaraba loo qoray. inta uu noolaanayo iyo arsaaqda uu quudanayo uurka hooyadiina mar labaad baa lagu qoray. waxna laga bedeli maayo. si kastoo laysu yidhaahdo u seejiya, wixii ilaahay u qoray cidi seejin mayso. si kastoo uu u dalbo oo u raadiyo, waxaanu ilaahay u qadarinna heli maayo. ilaahay baa meel ku diiwaan geliyey
في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إلهينا آن وحكا تغي وحنا آنو كيلاوي ولا ليا مر هدي حالك السداية وانت هذا آمنتو إن الله سبحانه وتعالى رزق قيبيو ولبنا ضدك وكوك لدوي إذن إيمان ما يسعد إلا حاسده أما وحوي يلغو النعو أما اللغو دبصده وحي الله سبحانه وتعالى أوسيي ويتامعنه ذو وحي نغنيسا قفك وحي إلهي وقرتينات كعريسانته وأديدنته وهذا الله سبحانه وتعالى كل هذا إلهي وادخل خلدنتي حولها إنات سي سميهي حاسد نمو يا النعيب يا عقدة يا وحي لمد حنون قلبك كدعة عقيدة ساكاد دوينيسة سيد بهدي أدو آمنتو مسألة اللبات وحيدنا مهمين إنه آمنه رزق الله سبحانه وتعالى وبحياء إني بلارنته وأنا يهين ذهب يا كاش يا وحي لمده يا قرية يا قوادي اللغسية وكلية رزق الله سبحانه وتعالى وبلارية وح الله لو وحي كو أنفعي انت هذا الدنيا جوت ورزق وي أوري وناكسن إلهي هدو كسية ورزق وناكسن وبد وناكسن إلهي هدو كسية وأرزاق مقع يشرف إلهي هدو كسية وأرزاق حول هدي الله وكسية وأرزاق علمي الدنيا آخرة وحكو تريا إنه إلهي كسية ورزق أرزاق دوا بضنته إن سيدان لو فهمه وحول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا انت اللي تشوغو رزق أقوي أقو خير كبضا أقو بلارا يا الله سبحانه وتعالى قف أوسي الدنيا ده وصبر كبول النبي عليه الصلاة والسلام آخرنا أرزاق دواوين الله وبحيه وحكم دينو تشندي سكو قليو أو كو أرزاقه سيدو الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق مركو تشندا كشيكيه وكسو قبقبيه قد أحسن الله له رزقا قفك إلهي وشندا قليو رزقي سبا الله سبحانه وتعالى وناتشي مسألة كلا مهم كاي وحي تاي ولا الله يا إنا إنو آمنو أرزاق دا الله إنا يقولي إنا يبلارن تاي إنا يدمر لهاي وسيكستو إلهي وحبحيو وحا أكتي سيالا إنا يقولي ما عندكم ينفد وحاض هيسان ودمانا ينبوري الله سبحانه وتعالى وما عند الله باق إلهي أكتيس وحيا لا نوى وحباقية وعن دماني وحري النبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم إلهي قعنتي سوى بوحدة مال إياهبين وحبي حسبو كجرة وإلهي وحبو بحنية وسيد الروب كود أيا وقلقليو أيا إلهي وحبي حنتي سنة يساق دبر دعيسا بحنو بحيا وحبك هدي من ميسو وحاوهيو وحولي النبي عليه الصلاة والسلام مركي إلهي وسماوات كيندو للكابور كودا وبلابي خلقك أبور كيسا وبلابي وحبي حنتي الله سبحانه وتعالى وبلابي با إلا ما انت سعونيس وحاسنا وحا إلهي أكتي سيا الله وحبك من نقصى منيس تانين إنو آمنو وهدي الله إلهدو سيدا هدها يادها عالمي هي أي شيغان معلول با سو سعوتا أبار با دعيسا عنتيران با دعيسا شغلان با سو سعوتا عريري بدن با إيمانية قف ولبا إنو آمنو وحي إلهي وطلق ليناني وحبا إسكالدمين إلهي أكتيس وحيا لانا إني واسعتاهي ودعي كرتا حلي اللغو واسعي وحلي نعريري اللغو قليو
ama bulsho meel degan xilli in la barwaaqeeyo loo waasiciyo xillina ilaahay uu cidhiidhi ka geliyo laakiin mar walba wixii qornaa baa la helayaa wax ku dhaafayaana ma jiraan dheeraad ku imanayaana ma jiro masalada iyadana aynu ku soo gabagabaynaynaa waxay tahay ee muhimka ah mar haddii xaalku uu sidaa yahay waxaa aada iyo aada u muhima marka risiqa loo shaqaysanayee la dalbayo meelihii ilaahay uu xalaaleeyay in laga raadiyo oo meelaha xaaraanta aan laga doonin aakhiru zaman baynu joognaa lacagta iyo adduunka lagu maman yahay meel walba laga raadinayo oo dad badan xaalkoodu uu yahay alxalaalu maa fi lyad waalxaraamu maa gaab xalaashu waa wixii qacanta ku soo dhaca wixii aan hela i xalaala wixii waaye iga maqanna waa iga xaaraan xaal badan yaan afka laga odhan dad badan xaalkoodu uu sidaa yahay waynu arkaynaa qaabab xaaraana in waxa weeye dad badani ay ka shaqaysanayaan ha ugu darnaadaan kuwa xoolahooda lagu dhacayo iyagoo xoola badsi waxa weeye doonaya oo brogaraamo iyo applicationno iyo barnaamij mobeelada iyo nadka lagu shubayo social media lacagahooda intay ku shubaan oo la yidhaahdo lacag bay ku dhalaysaa iska daatii ay u dhalaysay toodii waayaya raasumaalka waayaya marka dambena odhanaya meelaanu u raacna male hawadaasay ahayd oo hawaday u baxday oo iyadoo aynu arkayna dad badan oo ku khasaaroobay in haddana mar kasta hawsha timaada dadku ku daadanayo sida xoolaha loo jeceliya wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil wuxuu ii waxyooday oo ilaahay iigu soo dhiibay nafna inaanay dhimanayn ilaa ay dhammaysato risiqeeda faataquu llaha waajmiluu fi alab hadday sidaa tahay ilaahay ka baqa oo markaad risiqa dalbaysaan meesha aad ka dalbaysaan iska hagaajiye qofna arsaaqdii oo ka soo habsaantay duruuftii iyo waayihii iyo ku adkaaday yaanu ka raadin arsaaqdiisa wax ilaahay cadho gelinaya iyo macsiyo iyo dembi waayo ilaahay agtiisa waxa yaalla macsiyo iyo dembi laguma helo ee waxa lagu helaa ilaahay taacadiisa lagu helaa ilaahay in la ateecaa lagu helayaa kaasaana ilaahay kuu barakaynayaa haddaad wejiyo kale ka doonto kaba kulaylun baad ka qaadaysaa oo waxa weeye ilaahay kuu barakayn maayo walaalayaal waxaan kaga baxaya kusoo gabagabaynaya magaca alle weyn aynu maanta dul istaagayna ya rasaaq allaha wax arsaaqa waxaa loo baahan yahay oo ka mida waxyaabaha arsaaqda lagu helo in alle subxaanahu wa tacaala magiciisa lagu weydiisto ilaahay arsaaq inuu ku siiyo arsaaqda kuu furo sida nabigu calayhi salaatu wasalaam ba uu ku ducaysanayay nabi ciise calayhi salaam laynooga sheegay inuu yihi warsuqnaa ilaahayowna arsaaq wa anta khayru raasiqiin kuwa wax arsaaqee wax bixiyana ilaahayow adaa ugu khayr badan waxaa loo jamciyey dad badan baa wax bixiya laakiin bixinta ilaahay uu bixinayo waa midaan cidi kaga dambayn oo isaga ka soo fushay wey laakiin bini aadamka waxayee wax bixinayaa ilaahay baa soo mariyey wuxuu hayaana waa wixii alle subxaanahu wa tacaala sababun buu u yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaguna waa ku ducaysanaya ilaahay risiqa inuu furo wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma ajcal risqa aali muxammadin quuta ilaahayow arsaaqda reer maxamed waxaad ka dhigtaa quut waxay quutaan oo ku filan yacni adduunyo badan oo fasahaadiisa ha ku mashquulin markaynu labada sujuudood dhexdooda fadhiisanayn ducadaynu ku ducaysanno waxaa ka mida warsuqni ilaahayow iyo arsaaq ayuu ragcad walba nabigu calayhi salaatu wasalaam ku soo celcelinayay
maalin walba salaada subax markuu tukado isagoo halkiisa fadhiya ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaysanayay allahumma innii as'aluka cilman naafica ilaahayow cilmi waxtar labaan ku weydiisanaya wa risqan tayiba risiq xalaala baan ku weydiisanaya wa camalan mutaqabbala camal layga aqbalay baan ku weydiisanaya risiqa la weydiisanayana nabigu wuxuu sheegay inuu xalaal noqdo wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku ducaysanaya markuu sii seexanay markuu ilaahay ammaan badan ku ammaanay allahumma rabba asamaawaati asabc wa rabba alcarshi alcadiim wa rabba alcarshi alcadiim rabbana wa rabba kulli shay faaliqa alxabbi wannawa munzila altawraati waalinjiili waalfurqaan acuudu bika min kulli sharin anta aakhidun binaasiyatih اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء انت بإلهي بلغ أماني ومرك الله سيحني نبغو حد عدي كدغي اغنني من الفقر واقضي عني الدين إلهي الديمها إيغا بحي فقرنا إلهي إيغا كافي wuxuu nabigu ku ducaysanaya calayhi salaatu wasalaam oo la doonaya ducadaadu inay sidaa noqoto in ducadaadu hadaf iyo yool ay leedahay nin baa u yimi caliy ibnu abi aalib oo wuxuu yihi deyn baan la deldelanahay cali wuxuu ku yihi ducaan kuu sheegaya aan nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam haddii aad ku ducaysato dayn buuran laaleeg haddii lagugu leeyahay lagaa gudayo oo alle subxaanahu wa tacaala kaa fududaynayo allahuma kfinii bixalaalika can xaraamik wagninii bifadlika can man siwaak ilaahayow xalaasha aad i siisay ilaahayow igaga fillaysii xaaraanta oo xalaashaydu ha igu fillaato xaaraantana iga badbaadi wagninii bifadlika can man siwaak fadligaaga iyo nicmadaada iyo galladaada ilaahayow waxaad iga kaafisaa cid aan adiga ahayn inaan u baahdo aan qacmaha hoos dhigto ducooyinkan ayaa la ilaawi oo ay ugu mudan tahay magaciisa in lagu ducaysto alaa wasalluu wasallimuu calaa nabiyikum alamiin aladii amarakum allah bisalaati wasalaami calayhi biqowlihi fi kitaabihi almubiin in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ادفع الضر والبلاء عن المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مبرورا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اقض ديوننا واغننا من الفقر يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار